horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino waryaada bal warrama nabada alla fiican yahay waa haddii adiga nabad laga helo kaakhdama dadkaa ku cabsiida xaafadaha ilma ay ka seexan weeyena loogu waca warnamada waxaa la yidhi culays iyo fudayd dunidu waa labada caymood xajadu ciddii nool mar uun waa ka calowdaa maalintay cidhiidiga gasho ciirsi kala weydo nin ragays celshee doqontu waa cagagubyootaa cadowgiisa waa caawin jira caasi weligii saas itiri arro walle waa runtaada oo shabaab iyo daacishkan isku keen haya caasiyaal waa yihiin kuwa waaridkood habaaro weeye war adigni wad waarantahay arrinta daacish iyo al-shabaab way ka weyn tahay oo waa wilaayat soomaaliya fi daacish asoomaal iyo alqaacida lagaa daba orod weri dhegaystanmayo wareer haydin dilay walaayo ma aqaane maraa goof markaan joognayeen halaha maalaynay muqdisho ay dadkeennii miyigu wuxuu ku moodayey magacaaga goortuu maqlaba suu u maxabooday maka iyo madiiniya dhulkaan kugu mataalaynay iyo marashi kaa muuqataa waa mir kala dheere malahayga maamuusku waa kugu maqaarsaare dal magaala madaxdiis haddii lagugu muuneeyey mugdig iyo madoobaadku waa kuu macno la'aan xaqiiqdii niyan waad u qalantaa wilaayatuljunuuniya waryaa muqdisho maqaarsaar kuma ahan caasimadnimadee jabhadaa murxiyey shayddaana masiibaana ku gambatay muqdishay adigu mar haddaad ahayd madashii wedkiyo mugdi iyo madow mulaciyeeyadhig oon laysdhex marin bakastii hadday maangaabyadii kuu moodayeen meyd iyo mariil meel looga tegey madax daacadnimo kuu maamulo masharaha hayo malaayiin dadoo mulkigagaloo maxabiib kalgacal kuu muujisaa kugu meersano waa mahadal leh adigoo u mudan magaalooyinka oo muuqaal qurxoon martigali midnimo muqdisho kuleelkeeda inas idiin haaya waa idiin dareemaya oo goorma inaga baxaysaa masiibadaanne horaan waxaa loo yidhi hawareemaanya hawaaweeso inin hawaaran hal waaye muqdisho ma joogto meesha aad ka hadlaysaan iyo meel xun waa ay tallaabsatay maantana waa markii u horraysay ee lagu qabto shir caalami ah oo looga hadlayo ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya waa nabad iyo nolol waana gaarsiinaynaa muqdishona waxa ay mudan tahay in meel sare la gaarsiiyo waa berigii u horraysay bulshada xamar weyne dadku waxay saarkaan wareedha waa markii ugu horraysay oo shirka midowga Afrika oo madaxweynayaasha Afrika isku yimaadaan oo madaxweynaha Soomaaliya ka baaqdo oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka baaqdo oo aan u dirno ra'iisul wasaar ku-xigeenka Soomaaliya taas oo muujinaysa bisaylka siyaasadda Soomaaliya aan ka gaarnay oo madaxdeennuma waxay gaareen inay Afrikaanka yasaan oo ay yaraystaan ka qaybgalka shirkooda alla ilaahay war shirkii qaramada midoobay waa kii madaxweynuhu yasay oo ra'iisul wasaaruhu yasay wasiirka arrimaha dibaddana loo diray ee kuraasta u khudbeeyey meeshaas waa la isyasay ma ayaga keligood wax yasay ayaguna wasiiray direen kuraasna waa loo soo diray war yurriya warnimada gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu twitterkiisa ku soo qoray Theresa May waxaan ugu hambaleynayaa qorshaha aan midowga Yurub uga baxayna ayuu yiri waxaanan ka mid ahay dadkii u codeeyay marka waa yaabanahay gudoomiyaha gobolka banaadir ma Soomaaliya mise waa Ingiriis gobolka banaadir ma midowga Yurub uu ka tirsan yahay mise Soomaaliya mas'uul aan Yurub iyo Mareykanka ka imaanin miyaa xil ku hayo baasta kama uusan imaanin warwariyihii Sacuudiga la dilay baaritaankiisii eeada Mareykanku ka samaysay waxay yiraahdeen wuxuu ku caddaaday dhaxal sugaha Maxamed ibn Salman waxaan la yaabay marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waraaqay soo saartay waxay yiraahdeen waxaan soo dhaweynaynaa baaritaankii Sacuudigu sameeyeen marka waxaan la yaabanahay waraaqahan aan loo meel dayin maaliyadda ay noogu fadhiyaan tiro badana warwariyaha laba warqadaan ka soo saarnay laba jawaano lacagna waa marayna shuruurkuna ka uma joogo war aniga waxaan la yaabanahay wariyaal Soomaali ah oo maanta Muqdisho ku baroordiiqay oo dhahaya Jamaal Khashoggi oo bilo ka hor la dilay cadaalad waa inuu helaa marka waa yaabe iyagu cadaalad ma haystaan kuweena maalin kasta la dilase may u baroordiiqaan waraadar lacagtan wax celin kara ma loo dhan walba gaaraysa wariyaashan maanta banaan baxay oo sheegaysid ama fafanin ku gaara oo ciid farxiid qof walba hadii gaarto
maanta miska baroor diiqa laba sharuur Soomaaliya uma dul qaadan karto midka dawladdu qaadataana sharciya waryaa xuquuqda saxaafadda ha ku xadgudbin yaa shuruurka sharci darro ka dhigi war maanta u dambaysa gobolka mudug waxaa lagu dhaawacay wariyaal ajnabi ah idinkan u barooranaysiin adeerow dadka been hom sheegin waxaas dhaawac lama yiraahe toorey baa ninka lagu mudaye toorey yaa ka xunna wariya mayli absana wariyaaga dad oo eraw dagaal gundaheeda ka dhasha leeyma dus warakatabi fadaw waana toorey nan hirnaayna meel dhaha socdo liabsana wareedaha idaacadii al-shabaab oo Andalus la dhihi jiray oo jilib ku tiilay cirka looga soo dhacay la yiri iyadoo wixii warka ka akhrinayaba dhulka lagu daraa la yiri marka wariyaashaas soo xaq ma laha ma la dhaho wariyaha xaq door war kuwaas calleeray lama dihin wax xaq ma laha horaan waxaa loo yiri khusasha iyo khayl sidaanbo khabri waa ku qarsaha warnamaya warnanan roogni inay qusacbalaad anta ka haytan doorashadii koonfur galbeed madaliye maylak wareey 28ka belle waana doorasho halaal ah holimboga meelka dhii doonta langilay abowrobo mansuur iyo lafta garaangna kaamira zoom le ana saislan isfiiriyo hayaan reed maysin laha wara jire doone wiiska le hayere wara jire doone wiiska le hayere isi والسخن دربي كفر قلبيت في ملعب بيدبا يوم 28 شهر نوفمبر arabku kuna walayo aad nafta wala keere warnimada waxaan kula talin lahaa haddaad shabaab noqonaysaan oo aadnan shar dhaafayn oo shiddo iyo dhibaato inaad samaysaan rabtaan shabaab tolle almiina noqda sababta aan warkaasu leeyahay waxay tahay ninkii caloolgeel la odhan jiray oo puntland ay qabteen hadda ka hor oo xabsidaayinka ku xakumeen oo tolkiis ka hayn waayeenoo soo daayeen mar labaaday qabteen dil toogasho ay ku xukumeen tolkiisa laga hayn waayo waa la soo daayey mar saddexaaday qabteen gacanta in layskula tagay gaari tagtay waa la soo daayey marka waxaan u malaynayaa shabaab bay horta ku eedaynayeen intaas warkooda hadduu sax yahay ninkaasu waa shabaab tol leh najmiya waxaan u malaynaa ninkaas inay qoorta bar ugu taalo dad waxaa ugu liito ugu maayar qofkii shabaab tullimo ugu hiliya sababtoo ah shabaabku dilka iyo ihaanada tolkayba ka bilaabaan waraadha maamaaya ku dheelin waxay ahayd nin tiin beertay timir ma gurtee warnimayow tolnimo shabaab waa isqarxi iyo aan ku bireeyo war Somaliland war bay soo saartay waxayna yiraahdeen cunaqabataynta inaan Soomaaliya laga qaadin waynu ku faraxsanahay galmudugba waa ku faraxsantahay warkooda qabashale waraadha Puntland baa ku faraxsantaa war Axmed Duxul warkaas aad ugu faraxsan yahay danta wada jirkuud baa dayac kaga fogaataa dadkuna wuxuu ka maalaa hadba siduu u daajiyo haddana waa daraad yidhi waxaan uga dan leeyahay dawladda farmaajiyo khayra daadaheeyaan dadaal waa ka muuqda iyo horumar diirani waa berigii u horreysay oo laga adeegtay bakaaro waa berigii u horreysay oo bisadii jiirka adkaatay waa berigii u horreysay oo noo bislaatay canjeelo marna ma sinaan karaan qof dadka wacyigeliyey iyo mid dadka marin hawaabiyey war adeero waa ku mahadsantihiin islaqaankiina aad baan idin garanna naxdintiiyo xanuunkiiyo dilkiiyo naafadiyo dhiigga nabaradii dadweynaha ku dhacay naf iyo maalkiisa nabad iyo hadday nolol adeertaasi noqonayso naanaada beentiyo naxlina cidi ku naaxayso nin walba u nacayb iyo fudayd dhagar ku naashnaash qaraxii soobe waxa uu ahaa masiibo midnimo ayaanan ka helnay waryaada lagu kala wada dad waalan baa tiino markii geel loo heesaa goray oo heestaane nabad iyo nolol maarti waa jaajuus